بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعنا maanta wuxuu noqonayaa qaadka, sigaarka iyo maandooriyeyaasha. Aqliga waa wax Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu ku manadaystay bini aadamka oo aad u weyn. Haddii qofka aqliga laga qaado, xoolaha la mid noqon maayee wuu ka xumaanayaa. Maxaa yeelay xooluhu manaafacaad bay leeyihiin laga helo, laakiin qofka aqligu ka tegay dadka wuxuu kula dhex jiri uun dhibaato iyo in isaga laga warhayo si joogto ah waxna loo taro. qaadka iyo maandooriyuhu waxay luminayaan qofka dhimirkiisa, caqligiisa ayayna dhaawici. Sigaarkuna inkastuusan la mid ahayn labada kore, haddana isaguna wuu dhaawici caqliga. Waxaana isaga intaa usii dheer cudurro kale oo fara badan oo la ogaaday inuu leeyahay oo sabab u yahay. waxaa intaas u dheer saddexdaa shay oo aan maanta ka hadlayno, midna faa'iido la taaban karo, la sheegi karo oo aan ahayn in laga baac mushtaro ma laha. hadda wuxuu faa'iido kaliya markuu leeyahay la eegi maayo, waxa la eegayaa khasaarooyinka uu wato. oo Ilaahay khamrada markuu ka hadlayo wuxuu yidhi iyo muxuu ahaa khamaarka, wuxuu yidhi fiihimaa ismun kabiirun wa manaaficu linnaas wa ismuhumaa akbaru min nafcihimaa. labadu faa'iido way leeyihiin oo haddee waxaa laga yaabaa khamaarka in wax kaa soo galaan, khamrada inaad iibsatid, laakiin maxaa ka badan ismigoodii iyo xumaantoodii. saas awgeed qaadka iyo sigaarka iyo maandooriyeyaashu ismigooda ka badan haddaynuba niraahno dad baa carruur ku korsada. waayo hore ayaan waxaan maqli jiray kuwo culimo sheegta oo qaadka iyo sigaarka ku kala tilmaamay quutul awliyaa. awliyadu waxay cunto, sigaarkana waxay ku tilmaameen riixul miski, barafuunka miskiga la yidhaahdo. haddii kuwaasu Ilaahay ku ibtilayn lahaa oo ay noqon lahaayeen kuwo cuna maandooriyeyaasha, bal adaan ku weydiiyey maxay u bixin lahaayeen iyagana. culimada casriga aan joogno nool intooda warkooda la qaato waxay isku raacsan yihiin in qaadka iyo sigaarka iyo maandooriyaalkuba ay yihiin wax xaaraan ah oo khabaa'ista ayay ku jiraan. culimo waa hore noolayd oo aan la socon dhibaatada uu hadda la ogaaday baa sigaarka waxay yidhaahdeen waa makruuho, urkiisa unbaa xuno, waa makruuh. waxaase cilmiga casriga uu caddeeyey sigaarku inuu sababo u yahay cudurro aad u fara badan, kuwa maskaxda gala, kuwa feeraha gala, kuwa beerka gala, kuwa dhiigga gala. cudurro aad u fara badan oo kansarku ka mid yahay inuu sigaarku sabab u yahay ayay culimmadii ogaadeen. saas awgeed bay marka wuxuu ku noqday oo khasab inagu ah inaynu niraahno waa xaaraan. qaadka iyo maandooriyaalku waxay ka liitaan sigaarka, maxaa yeelay wayba ku cayreynayaan oo eber bay ka dhigayaan jeebkaagii. oo intee baynu aragnay nin qaad cuna ama daroogo cuna oo reerkiisii ay dayacan yihiin, shay wixii soo galana siisanaya qaad ama siisanaya maandooriye. ugu dambeyn walaal, saddexdaa shay waxaan kugu waaninayaa inaad ka dheeraato. qofka saddexdaa isticmaalana waxba ha u dhiiban oo ii shaqay ha odhan. maxaa yeelay markuu maalkiisii uu baabi'iyo wuxuu usoo dhigan aakhirka kaaga
suu u helo qaad iyo sigaar iyo maandooriyayaal. kaas inuu wax loo dhiibto ma aha, maxaa yeelay waa mubadir ama waa safiih. qofka isticmaalaa saddexdaa shay ama waa mubadir ama waa safiih. mubadir waxa la yihahdo qofka maalka ku cayaara, safiihna waa mid madaxiisu uu fudud yahay. hadalka aan sheegayo inuu dhab yahay, qiso yar baan idiin sheegaya. nin waxaa jira taajira oo lacag badan lahaa, oo aan mar guri wada seexan jirnay. marka nin yar baan ahay oo markaa iskuulka dhigta, isaguna waa nin milyoneer oo lacag badan haysta. marka qaad buu cuni jiray. markuu qaadka soo cuno oo habeenkii soo yimaado wuu faraxsan yahay. wal wuxuu ku faraxsan yahay adigu isweydii. markaasuu wuxuu iga sheekaynayaa, kaasu intaasuu iga qaatay, kaasu intaasuu iga qaatay, halkaa intaasa igaga dhuntay. wiil yaroo waxaa fahmi karaba aniguna ma ahi. halkaa waxaa garanaysaa ninka caqligiisu inuusan taam ahayn. ilaahay subxaanahu wa tacaala maalka wuxuu kuu siiyey oo kuugu manadaystay inaad ku bedelato wax nafac leh oo faa'iido leh. kuma sita uu siin inaad ku gadato waxyaalaha saddexda ah shay oo wax khasaaro aan lahayn iyo wixii la mid ah sida siinada iyo khamriga. ogow walaal, maalka aad hadda haysato xor uma tihid inaad ku isticmaashid waxaad rabtid. qaar badan baa ku oranaya maalka xor baan u ahay, anaa shaqaystay, waxaa rabaanna ku samaysanaya. hadalkaasu hadal saxa maaha. maxaa yeelay qof walba waxaa ka dambeeya la xisaabtan, oo rabbi baa la xisaabtami. maalka xaggee ka keentay iyo maxaad ku bixisay. waxaa weliba ay maalkaanu ku sii xun yihiin saddexdaa shay aan sheegay, inay ku maal tirayaan. akhiiranna derbi jiifaad noqonaysid amaba aad ku waalatidba. intee baynu aragnay nin qaad soo u cuni jiray waashay oo dharka dhigtay? waa badan yihiin. waxaan marka walaal warkayga kusoo gabagabaynayaa, ka digtoonow saddexdaas shay oo xunxun. mana banaana in la cuno iyo in dad la siiyo iyo in laga baayac mushtaro. saddexduba waa xaaraan. dadka aad ka naxaysidna ka waani. oo waxaan arkaa qaar odhanaya dumar baa ku maaratay ilmahoodii ma garanaysaa ku masruufta. war haddee nafac wuxuu leeyahay la eegi maye, waxaa la eegayaa natiijada uu keenayo. marka ilmana waa korsanaysaa, mujtamaciina kala bar baad kharibaysaa. maalkii waddanku iska lahaana waxaa loo rarayaa waddamo aynu jiiraan nahay oo iyagu beerta qaadka. markaasayn iyadoo dollar raraynaa, caleemo sida arigi iyo xoolihii oo kalena soo raranaynaa. marka arrimahaas iska ilaaliya walaal, yaan lala isticmaalin. carruurta ha laga ilaaliyo, ahalka ha laga ilaaliyo, hana la iska waaniyo. intaas ayaa warkayga kusoo koobi. wallahu subxaanahu wa tacaala aclam.